gudoomiyaha gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan iyo mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiska maamulka gobolka ee magaalada Cerigabo ayaa waxay si wada jir ah halkaasi fariin ku saabsan ka hortagga cudurka sanfareenka ah ee COVID-19 uga direen bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag kaasi oo mar labaad dunida ku soo laba kacleeyay xabaryahan dambe soo laba kacleeyay xanuunkii dilaaga ahaa ee safarka ahaa ee COVID-19 waliba isaga oo noocyo kala ah oo fayrasyadu ay kala duwan yihiin alxamdulillah ka gobol Sanaag ahaan aad baynu uga fiicnayn ilaahayna waa inaga badbaadiyay kii hore ee dadka halista galiyay ka dambana waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay inaga badbaadiyo inagana waxa la inooga baahan yahay inaynu samayno dadaal inagoo ilaahayna kaashanayna inaynu samayno shuruudihii lagaga hortagi karayay asbaabtii oo dhan inaynu la nimaadno waxaa la dareemayaa warbixinadu sheegayaan in meelo badan laga arkay oo ay jiraan oo caseska lasoo report gareynayaay ay tilmaamayaan markaanu eegnay goobaha caafimaadka la tilmaamayo inuu xanuunkaasi soo kordhayo sidaa awgeed bulshada gobolka Sanaag waxaanu ku wacyigelinaynaa waanu leenahay aad ha looga taxadiro hana la fuliyo dhammaanba shuruudihii ay wasaaradda caafimaadku u dejisay in bahalkaasi kii ilaahay la kaashanayo laga gaashaaban karo waxa ugu muhiimsanaa saynu hore isla ogeyn nadaafadda ayaa ugu muhiimsan in nadaafadda lagu shaqeeyo oo nadaafadda la ilaaliyo waxaa soo raacaya in faraxalka nadaafaddu waxay ka siblaamaysaa in qofku mar walba faraxalanayo nadaafadiisa ilaalinayo inaan la isa salaamin sida dhammaanba maxaan ku dhahay wacyigelinta hore inoo soo gaarsiiyey tii hore wasaaradda caafimaadka iyo guddiga heer qaran ee COVID-ku ay maxaan ku dhahay inoogu tilmaameen tilmaamihiibaa mar walba maxaan ku dhahay sidoodii loo fulinayaa salaanta salaamu calaykum baa qofka kaaga filan in gacantaadu gaadhaay maxaan ku idhaahdaay xiliyadan waa laga baraka badan yahay salaamu calaykum iyo wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kaaga filan kulanada ururada ah ee aadka loogu kulmayana waxay ku habboon tahay in bal horta qofka hadday ku kalifto in urur ka soo qayb galo uu afxidhkiisa soo qaato ayaa ugu muhiimsan marka waxaan leenahay afxidhkiina isticmaala nadaafadiina ilaashada waliba dadka waayeelka iyo dadka xanuunada gaarka leh waxay noqonayaan kuwa ugu nugul sida aynu ka warqabno 100 jeerna la inoogu soo celceliyo guddiga maxaan ku dhahdaa heer qaranna waxaanu leenahay ee COVID-19 de koonihii gobolkan ee dalkan ku noolahay ee agabka laga gaashaamanayo waa inay iyaguna maxaan ku dhahdaa in soo gaarsiiyaan oo maxaan ku dhahdaa wax alla wixii laga hortagi karay agab aan uga baahanahay iyaguna noo soo gudbiyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin 2022 waxaanu ka gaarinsanaynay in bulshada gobolka Sanaag laga wacyigeliyo xanuunkii coronavirus-ka ahaa oo markii hore waxa la oran jiray waa soo laba kacleeyay saddex kacleeyay waa third wave sadraadeed adduunka aad buu u sareeyaa waxyaabaha aanu maanta markaa ka hadlayna waxay waa wacyigelin sidii bulshadii laga wacyigelin lahaa marka la leeyahay mawjado xanuunkana soconaya waxa sida mawjada dadkiiba xanuunkii qayb tahay xanuunside kuwii kale way gudbinayaan marka si aan xanuunkaasi u faafin waa in dadka la xakameeyo oo si lagu xakameynaya waa in nadaafadda faraxalkii goobihii lagu ururayay masaajida meelahan basaska iyo transportationka shaxda oo hadda soo badatay isku urursan yihiin dadka waaweyn waliba oo dadka xanuunkan ku dhacaw dadka waaweyn ayaa shaxdi ciyaaraya dadna shaxdi ay iyo meelihii entertainment-ka ka kala qaybinayaan sidaa daraadeed waxaan bulshada faraynaa inay farxashaan mar walba oo ay meel taabtaan inay farxashaan afxidhkuna waa talabaad in afka la xidho oo waayo naqaskii qofka positive-ka ahaa wuxuu u gudbinayaa kii kale in afka la xidho waa lagu badbaadaya waxaa kaloo la sameynayaa salaanta wadiiniyan lama diidana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laakiin gacan qaadka in la yareeyo ama aan la sameynba gacan qaadka qofka halkaa laga salaamo waxyaabahaasi waxyaabaha uu ku yaraanayo ama in ku waayin xanuunka madrasadaha macallimiintu waa inay qorshe guddidan way iman doontaa insha Allah heer qaran iyo heer gobol iyo heer wasaaradda caafimaadba waa in
aynu u samaysanaa si aynu carruurteena u kala fogeyn lahayn carruurtu waa qaadan hada jeer iyaga wax ma yeelo laakiin si dadka waaweyn bay u gudbinayaan sidaa daraadeed carruurta masaafooyin loo sameeya ay wax ku bartaan basaska oo kale dadka gobollada ka keenayaan waa in aynu dadka transportationka lasoo qaadayo waa inay basasku dadka kala durkiyaan oo afxidhkii iyo farxalkii iyo wixiiba ay soo shirkadu sameeyaan si aan xanuunka gobol kale intay kasoo qaadan gobolka kale u keenin intaas waa intaa dadka qofacaya ama xaafadaha jiifa xumadoonaya waxaan ku boorinaynaa haddaan heer gobol nahay inay yimaadaan xarunta wasaaradda horumarinta caafimaadka cusbitaalka guud oo waa wax hawl yare mashiinka iyo caalamiya oo standard inoo yaalle in candhuufta yar laga qaado dalqada laga mariyo iswaabka yar 7 saacadood kaa maqnaado ama 12 saacadood deedna lagu ogaado qof caagan inuu qof xanuunka yahay iyo qof kale yahay lagu ogaado saa dadka aad u shaqayn taasina waa wacyigelin aan farayno وعبد اللطيف سعيد أحمد قبنيمة TV عرقابو.